sideedda bishii Sebtembar boqortooyada Ingiriisku waxa ay dhaahisay geerida boqoradii dalka ee Elizabeth labaad oo da'deedu cagacageynaysay 96 sanadood. Arrinka la yaab kale waxa uu yahay intii adduun weynuhu ku jiray kadiska warka dhiilada leh warbaahinta reer galbeedkuna ay qaadaadhigaysay tacsida aan kala go'aynin ee madaxda adduunku ay ka tacsiideysay geerida boqoradda in dalalka koonfurta Asia gaar ahaan dalka Hindiya uu ka soo ifbaxay hal eray oo trend noqday oo meel walba qabsaday. Ereygaasina waa Kuwa-Nuur waa magaca ay leedahay dheemanta adduunka ugu caansan waana isla dheemanta ku dhex taala mucatabka ku xardhan taajka ay xidhan tahay boqoradda Ingiriisku. Marka maxaa keenay magaca dheemantan inuu trend noqdo? Maxay tahay sababta ku kaliftay dadka reer Hindiya in ay daneeyaan dheemanta saaran taajka boqoradda Ingiriiska? Sababtu waa in marka horeba Ingiriisku dheemantan aanu isagu lahayn ee sanado badan ka hor uu ka soo xaday dalka Hindiya. Ilaa maantadan oo la joogana qoyska boqortooyada iyo xukuumadda Ingiriiskuba way ka soo taagan yihiin inay qirtaan dheemantan inay soo xadeen amaba ay soo xoogeen. Iyada oo magaca Farisiga ee dheemantu inoo cadeynayo inay tahay agab laga soo xaday dhul kale. Waxa ay sidoo kale diideen oo dhagaha ay ka fureysteen baaqiyo kala duwan oo in badan loogu baaqay dheemantan inay u celiyaan cidii lahayd. Asal ahaanta dheemantan waxaa la sheegaa inay lahayd boqortooyadii Mogoolka ee Muslimka ahayd ee ka tilin jirtay dalka Hindiya. Xukuumadihii kala dambeeyay ee Ingiriiska soo marayna si cad ayay u diideen dheemantan inay u celiyaan dadkii laga soo dhacay, iyaga oo ku doodaya dheemanta in aanay xoogin ama aanay xadin ee hadiyad ahaan loo siiyey boqortooyada Ingiriiska. Halka baarlamaanka Ingiriisku dooda ka taagan dheemanta uu ku sheegay dood isaga aan khusaynin. Kolka maxay tahay sheekada dheemantani? Yaa se dhab ahaan u leh dheemantan? Maxaa keenay dheemantani sidaas oo dhan inay caan u noqoto iyadoo ay jirto in aanay ahayn dheemanta adduunka ugu weyn ama ugu quruxda badan? Sidee ayuu Ingiriisku la wareegay? Maxay ahayd xatooyada dheemanta kaalinta ay ku lahayd shirkadda Hindiyada Bari? Maxayna tahay sababta Ingiriisku uu weli u diidan yahay inuu dheemantan iska celiyo? Sidee ayay ku dhacday 4 dawladood oo kala duwani inay sheegtaan milkiyada dheemantan? Weydiimahaas ayaynu warcelin u wada raadin doonaa inta muuqaalkan aynu wada daadahaynayno ee daawasho wacan. 29 Maarch sanadkii 1849 wiil yar oo 10 jir ah ayaa mar keli ah waxa uu ku naxay niman shisheeye ah oo uu dhexda ugu jiro oo go'doon geliyay. Waxay dhacdadaasi ka dhacday qasriga muraayadaha ee loo yaqaano Shish Mahal oo hadda ku yaala magaalada Lahore ee dalka Pakistan. Ilmaha yari waxa uu ahaa Maharaja Duleb Singh oo ahaa boqorkii ugu dambeeyay ee ay yeelato boqortooyadii Sikhu. Shisheeyaha ilmaha yar dhexda geliyay waxay ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsanaa shirkadda Hindiyada Bari oo ahayd shirkad gumaystaha Ingiriiska u qaabilsaneyd arrimaha ganacsiga iyo ciidanka ee Hindiya. Ilmaha yar ee nimankan turuqyada waaweyn ay isku xeereen aad ayuu u cabsanay. Cabsidiisuna waxay salka ku haysay laba sababood. Wata koobaade ciidankii boqortooyadiisa waxa lagu jabiyay laba dagaal oo ay la galeen ciidamada Ingiriiska bilihii kala ahaa January iyo February ee sanadkii 1849 halka bishii March isla sanadkaaba ciidamada boqortooyada Sikhu ay hubka dhigeen oo ay isu dhiibeen ciidamadii Ingiriiska. Wata labaade waa wiilka yari inuu keligii ahaa oo waayeel ka weyni aanu garabkiisa joogin. Aabihii oo ahaa Rajind Singh waxa uu geeriyooday 10 sanadood ka hor oo ku beegan sanadkii 1939. Hooyadii oo ahayd Rani Jindal iyadana Ingiriiska ayaa ku xidhay qasri magaalada duleedkeeda ku yaalay. Ugu dambeyntii wiilkii yaraa oo ragga shisheeyaha ka cabsanaya afka ay ku hadlayaan aan fahmaynin ayay Ingiriisku ku dirqiyeen in uu saxeexo heshiis ka kooban 5 qodob. Qodobada waxaa ka mid ahaa wiilka yari boqortooyada Ingiriiska in uu uga tanaasulay dhulkii ugu hodansanaa ee Hindiya ku yaalay. Halka qodobka saddexaad ee heshiisku cadeynayay in Maharaja Duleb Singh boqorada Ingiriiska uu ku wareejinayo wixii ugu qaalisan ee uu haystay. Waxa ugu qaalisan ee u jeedaana waa dheemanta Kuwa-Nuur. Kuwa-Nuur waa erey Farisi ah oo micnihiisu yahay buurta nuurka. Waa dheemanta adduunka ugu caansanayd. Duleb Singhna waxa uu ka dhaxlay dheemantan aabihii Rajind Singh. Hase ahaatee isaga iyo aabihii midkoodna dheemantan may lahayn ee talow asal ahaan yaa iska lahaa. Dhab ahaantii warcelinta weydiintaasi waa harxilaalo weyn. Waxaan odhan karnaana ilaa maanta oo la joogo lama hayo cid si cadeymo ku laran yihiin u cadeyn karta ciddii ugu horreysay ee dheemantan iska lahayd. Balse taariikh ahaan waxaa cad in markii ugu horreysay ee dheemantan la arkay in lagu arkay suldaankii Mogoolka Hindiya ka talin jiray ee lagu magacaabi jiray Shihabuddin Muhammad Shah Jahan oo noolaa intii u dhaxaysay 1628 ilaa 1658. Dheemantanina waxay saarnayd kursiga suldaanka oo lagu magacaabi jiray Carshu Taawus. Kadib sanadkii 1739 waxaa soo ifbaxay ninkii yagleelay qoyska Afshariyada oo lagu magacaabi jiray Nadir Shah, kaas oo kursiga Carshu Suldaan ka wareejiyay Hindiya oo geeyay dalka Iiraan.
1749 waxaa la dilay Naadir Shaah. Dheemantii Kuwaanuurna waxa ay gacanta u gashay Axmed Khan Cabdallah oo ah ninka yagleelay boqortooyadii Daraaniyada. Axmed Khan markii uu dheemanta gacanta ku dhigay waxa uu abaaray magaalada Qandahar, waxa uuna halkaa ka yagleelay dowlad cusub oo ah Afghanistan maanta aynu naqaano. waxa uu dhintay Axmed sanadkii 1772. Geeridiisa kadib dheemantii waxa ay ku wareegtay wiilkiisii Taymuur Shaah oo dhaxlay kursiga aabihii ka dhintay. dheemantaasina gacanta Taymuur Shaah waxay ku jirtay 21 sannadood ilaa uu ka geeriyooday sanadkii 1793. Taymuur Shaah waxa uu ka tegay 24 wiil. 24kiisii wiil waxa ka dhex qarxay dagaalo ay isku haysteen ka ku fadhiisanaya kursiga maamulka. sanado tiro badan markii uu aloosnaa dagaalada u dhaxeeya walaalaha tirada badan, ugu dambeyntii Kuwaanuur 1813 waxa ay gacanta u gashay boqor Ranjit Singh oo ah boqorka Siikha ahna aabaha wiilka yar ee shaqadiisa wax yar ka hor aynu soo dulmarnay. kolkaa dheemantani sidee ayay gacanta ugu gashay Ranjit Singh? aniga ayaa kuu sheegay. Taymuur Shaah markii uu geeriyooday dheemanta waxaa hayay wiilkiisa Shujaac Shaah oo ka talinayay Afghanistan ilaa 1803. sanadkii 1809 ayaa xukunka laga tuuray. sanad kadibna waxa uu gacanta u galay xaakimkii ka talinayay Kashmir oo jeel ku tuuray. kolkaas ay xaaska Shujaac Shaah ay u qayla dhaansatay boqor Ranjit Singh oo la hor fadhiyay. waxay ka codsatay saygeeda inuu u soo furto oo jeelka ka badbaadiyo, waxaanay ballan qaaday inay abaalgud uga dhigayso dheemanta Kuwaanuur. dhab ahaantiina Ranjit Singh waxa uu suura gashay Shujaac inuu ka soo badbaadiyo jeelka, balse Shujaac Shaah kolkii uu jeelka ka soo baxay waxay lixajacla ka gashay dheemantii oo uu ka wareejinteeda. laakiin waxa aanu ka warqabin Ranjit Singh inay ka go'nayd mar uun inuu gacanta ku dhigo dheemantaa iyo inuu diyaar u ahaa wax kasta oo dheemantaa uu ku heli karo inuu sameeyo. sidaa awgeed isagoo uga dan leh inuu culays iyo cadaadis uu ku saaro Shujaac ayuu jeel ku xidhay, waxa uuna ciidankiisa faray inankiisa inay ku horjeedilaan har iyo habeen ilaa ugu dambeyntii uu Shujaac yeelay inuu ku wareejiyo dheemanta sanadkii 1813. xilligaa wixii ka dambeeyey Kuwaanuur waxa ay ka wareegtay reer Afghanistan, waxa aanay u soo wareegtay Siikhii ka talinayay Lahore oo wixii intaa ka dambeeyey ay noqotayba astaanta boqortooyadooda. hase ahaatee Kuwaanuur kumay raagin Siikha agtooda, maxaa yeelay 36 sannadood kadib markii ay Shujaac ku qasbeen inuu ku wareejiyo dheemanta ayaa iyagana Ingiriisku uu ka gacan maroojiyey markii shirkadda Hindiyada bari ay ku dirqiday wiilka yar ee Dulab Singh inuu dheemanta ku wareejiyo boqoradii waagaa ka talinaysay Ingiriiska oo ahayd Queen Victoria. heshiisku sheegaasi waxa uu dhacay sanadkii 1849. isla sanadkii ku xigay oo ku beegan 1850 Kuwaanuur waxay soo gaadhay magaalada Plymouth ee dhacda galbeedka Ingiriiska. waxa halkaana lagaga soo qaaday tareen gaar ah oo iyada loo qoondeeyay oo u soo qaaday magaalada London, halkaas oo la dhigay xarunta shirkadda Hindiyada bari ee ku taala wadada Leadenhall. kadibna 2 maalmood kadib waxa lagu wareejiyay boqorad Victoria. boqoradu markii ay dheemanta aragtay way ku indha-daraandartay. in badan ayay hore u maqashay war iyo xan kala duwan oo dheemanta ku saabsan, balse araggeeda ayaa ka ashqaraar badnaa xanteeda. dhab ahaantiina boqorada oo keliya may ahayn cidda la dhacsanay dheemanta, sidoo kale waxa iyaguna u hanqaltaagayay aragtideeda bulshada Ingiriiska oo idil. sanadkii xigay oo ku beegan 1851 ayay go'aansatay boqoradu Kuwaanuur inay ku soo darto agabka lagu soo bandhigayo bandhiga weyn ee lagu qabanayo Hyde Park oo loo yaqaano Great Exhibition. bulshada reer Ingiriis maalinka waxay isaga kala yimaadeen afarta koone ee dalka. bandhiga hortiisana waxa lagu arkayay dad fayl dheer ugu jira inay soo arkaan dheemanta mar la aragga ah. bandhiga kadib boqor Victoria waxay amar ku bixisay dheemanta in la safeeyo. sidaas ayaana shirkadda Costa Diamond ee reer Holland oo loo aqoonsan yahay inay tahay shirkadda ugu guunsan adduunka shirkadaha safeeya ee qaabaya dheemantu ay mashruuca kula wareegtay. shirkadaasi dheemantii way safaysay, qaradeediina way yaraysay oo halkay ka ahayd markii hore 190.3 qeyraad waxa ay ka dhigtay 105.6 qeyraad. muddo dheer ay qoyska boqortooyada dheemanta ay haysteen oo ay ka mid ahayd dheemantooda kale ee hantida u ah. laakiin sanadkii 1937 ayay Ingiriisku go'aansadeen dheemanta inay ku qurxiyaan taajka ay xidhan tahay boqoradda Elizabeth Powys oo ahayd hooyada boqoradda bishan geeriyootay. kadib shirkadda dheemanta ee reer Ingiriis ee lagu magacaabo Garrett ayaa qaabaysay taajka boqoradda. taajka waxa ay ka sameeyeen dheeman iyo luul kala duwan oo hantida qoyska ka mid ah. dheemantii adduunka ugu caansaneed ee Kuwaanuurna waxa ay dhigeen dhexda mucatabka xagga sare kaga yaala taajka. taajka markii ugu horreysay waxaa xidhatay boqoradda Elizabeth hooyada ah kolkii inanteeda Elizabeth labaad loo caleemay saarayay boqoradda boqortooyada 1903. boqorad Elizabeth hooyadu kolkii ay geeriyootay taajku waxa uu ku wareegay inanteeda oo ah boqoradda Elizabeth labaad. hadda oo ay geeriyootay boqoradda Elizabeth labaadna saadaashu waxay u badan tahay taajkaasi inuu ku wareegi doono Camilla oo ah xaaska boqorka Charles ka saddexaad oo ah boqorka Ingiriiska ee booska dhaxlay.
taajku waxa uu yaalaa oo lagu ilaaliyo guriga dheemanta iyo luulka ee loo yaqaano Jewel House oo ku yaala Towerka London oo lagu talagalay dadku inay booqdaan. Dheemantan oo dadka badankiisu u qiirsan yihiin inay tahay dheemanta adduunka ugu caansan waxaa xoog ku haysta qoyska boqortooyada Ingiriiska, iyada oo la isla wada og yahay hanti ahaan in aanay lahayn ee keliya ay tahay biliqooyinka badan ee qoyskani ay biliqaysteen dalalkii ay gumaysteen. Carabtu waxay ku mahmahdaa maa daaca xaqun waraa'ahu mutaalib, ma lumo xaq qofkii lahaa uu daba socdee. dheemantan dadkii laga soo xaday marna kamay quusanin soo ceshashadeeda tamari meelay dhigtaba. waxaa jira 4 dowladood oo xiliyo kala duwan Ingiriiska ka codsaday inuu u soo celiyo dheemanta Koh-i-Noor. dowladahaasina waxa ay kala yihiin Hindiya, Pakistan, Afghanistan iyo Iran. waxaa isweydiin mudan sidee ay 4 dowladood ay hal mar u wada sheegan karaan lahaanshiyaha mulkiyadda dheemanta, sababtoo ah 4 dowladoodba waqtiyada ka mid ah ay dheemantan hantiyeen oo dhulkooda ay taale. ciddii ugu horreysay ee Ingiriiska ugu baaqday Koh-i-Noor inay soo celiyaan kadib gumaysiga dhammaadkiisu waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Pakistan ee loo yaqaanay Dhulfiqar Ali Bhutto. bishii August 1976 ayuu Dhulfiqar fariin u diray ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee James Callaghan oo ugu baaqay dheemanta Koh-i-Noor inuu u soo celiyo dowladda Pakistan. bil kadib ayuu Callaghan u soo jawaabay Dhulfiqar oo uu cadeeyay wax ay soo celinayaan haba yaratay inaanay jirin. waxa uu ku dooday dheemantan inay kula wareegeen heshiiska loo yaqaano heshiiska Lahore ee uu saxiixay Dolab Singh oo sida aynu soo wada marnay ahaa wiil yar oo 10 jir ah oo aan fahmaynin afka lagula hadlayay, dooq uu ku diidana aan lahayn. Callaghan waxa uu intaa ku daray dhab ahaantii sooyaalka dheemantani waa mid madmadow ku jiro. waxaa jira dowlado kale oo iyaguna sheeganaya hantida dheemanta iyagu inay leeyihiin. sida awgeed inta xaaladaasi ay taagan tahay kulama talin karo boqoradu dheemanta inay ku wareejiso mid ka mid ah dowladahaas. 34 sannadood kadib hadal aan wax badan ka duwanayn waxaa Hindida ugu jawaabay ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee David Cameron goor uu Hindiya booqasho ku gaaray 2010. intii uu booqashada ku guda jiray waxaa waraysi la yeeshay channelka NDTV ee reer Hindiya. waraysigaas waxaa lagu weydiin fudud: dheemanta Koh-i-Noor ma idiin qorshaysan tahay inaad noo soo celisaan mise idiinma qorshaysna? warcelinta weydiinta uu kaga warceliyay Cameron waxay ahayd mid la yaab leh. waxa uu si bareer ah u yidhi dowlad kasta wixii aanu ka qaadnay haddii aanu dib ugu celinno waxaanu arki doonaa matxafka Ingiriiska oo haawanaya oo aanay waxba dhexoolin. waan ka xumahay in hadalka aan sidaa u dhigo, waanan ogahay ayuu yidhi warcelinteydani inay daawadayaasha niyad jabin doonto. hase ahaatee Koh-i-Noor halka ay taallo ayay oolaysa. guud ahaan dalka Hindiya waa dalka ugu badan ee Ingiriiska ugu baaqay inuu iska soo celiyo Koh-i-Noor. 1990 Kuldip Nayar oo ahaa wakiilka sare ee Hindiya u fadhiya London waxa uu ku tilmaamay haysashada Ingiriisku ay xooga ku haystaan Koh-i-Noor inay tahay xatooyo ay dowladda Ingiriisku garab siinayso. waxa kale oo uu yidhi markasta oo aniga iyo qoyskaygu aanu booqasho ku tagno Towerka London mas'uuliyiinta goobta jooga dhinac ayay ila baxaan, waxaana igu yidhaahdaan waanu kugu ceebaysanahay niyow, waan ognahay dheemantan idinku inaad leedihiin. waana hadal u dhow hadalkii ay tidhi xaaskii hore ee Boris Johnson oo lagu magacaabo Marina Wheeler. waxay tidhi waa inaynu qoraal ku dhinac qorno dheemanta Koh-i-Noor, qoraalkaas oo caddaynaya in dheemantan laga soo qaaday dalka Hindiya milkiyadeedana weli la isku haysto. waxaa lagama maarmaan ah dadka dheemanta u soo daawasho tegaya inay gartaan sooyaalka dhabta ah ee dheemantani ay soo martay. islaanta wanaagsan warkeeda marka laga yimaado dhammaanteen waynu wada ognahay in Koh-i-Noor ay gacanta ugu jirtay qoyska boqortooyada Ingiriiska ilaa iyo sanadkii 1849. laakiin waxaa isweydiin mudan qoyska boqortooyadu qaab sidee ah ayay dadka ugu sheegaan sooyaalka dheemantan. haddii aad booqatid website-ka London Tower ee loo yaqaano Historic Royal Places waxaad ugu tegaysaa qoraal sidan u dhigan: It was presented to Queen Victoria in 1849. Koh-i-Noor waxaa la guddoonsiiyey boqoradda Victoria 1849. kolka aynu yara dul istaagno ereyga la guddoonsiiyey waxay inooga dhigayaan boqoradda oo qasrigeeda iska fadhida albaabka inuu uga soo galay wiil yar oo 10 jir ah oo Hindiya ka soo sadcaalay oo sida dheemanta adduunka ugu caansan, dabeedna uu ku yidhi waxaan kaa codsanayaa inaad iga guddoontid dheemantan qaaliga ah. kolka website-ka aynu dib ugu laabanno waa inuu warcelin u raadino weydiinta ah ka hor 1849 iyay gacanta ugu jirtay dheemantani, asal ahaanna xaggee ayay ka timid. waxaynu ugu tegaynaa qoraal sidan u dhigan: It is steeped in a myth and anecdote, oo ka dhigan sooyaalka dheemantani waxa uu dhex muquuranayaa khuraafaad iyo sheeko bareley. yacni waa dheeman asalkeeda aan la garanaynin oo wiil yari una guddoonsiiyey. marka warka la isku soo wada duubo siyaasadda qoyska boqortooyadu ay u dhigteen codsiyada lagu codsanayo inay soo celiyaan Koh-i-Noor waa inay iska dhaga maraan. isku dayga ugu dambeeyay ee Hindiya ay isku dayday in ay dib ula soo noqoto Koh-i-Noor waxa ay ku beegan tahay 6 sannadood ka hor.
bishii Abriil ee 2016 xukuumadda Hindiya waxa ay dhaahisay inay geed dheer iyo geed gaabanba u fuuli doonto sidii ay u soo ceshan lahayd Kuwa-Noor. wasaaradda dhaqanka ee Hindiyana waxa ay sheegtay ra'iisul wasaaraha dalka Narendra Modi inay ka go'an tahay in uu dib u soo celiyo dheemanta Kuwa-Noor. ilaa imikadan la joogana Hindiya iyo Pakistan waxay ku daba jiraan soo ceshashada dheemanta. codsiyadooda mararka qaarkood waa la iska dhaga maraa, marar kalena jawaabo aan habboonayn ayaa lagu dhaafaa. tusaale ahaan 2015 waxaa si wada jir ah olole u wada qaaday ganacsato iyo jirayaal caan ah oo Bollywood ka tirsan. waxay u ololeynayeen Ingiriisku in uu u soo celiyo dheemanta Kuwa-Noor dalkooda Hindiya. kadib waxaa soo muuqday taariikhyahanka reer Ingiriis ee lagu magacaabo Andrew Roberts. waxa uuna yidhi dadka dabada ka riixaya ololahan liita waa inay ogaadaan boqortooyada Ingiriisku inay tahay meesha keliya ee ay ku habboon tahay dheemantan inay taalo. haysashada Kuwa-Noor aanu haysanaa waa abaalgudka ugu yar ee Hindidu abaalkayga ay ku gudi karaan. oo talow muxuu yahay abaalka uu Hindida u sheeganaya? isaga ayaa inoo sheegayay. waxa uu yidhi 300 oo sannadood oo dalkooda aanu dhisaynay oo aanu horumarinaynay oo dimuqraadiyad iyo dowladnimo aanu ka hirgelinay abaalkeeda ma gudi karaan. ee ugu yaraan waa inay u arkaan Kuwa-Noor inay abaalgud uga dhigaan boqortooyada Ingiriiska ee dalkooda 300 oo sannadood horumarinaysay. waa hadal meel waayay iyo nin iska hadlay. dalalka Ingiriisku uu soo guumaystay ma jiro dal uu ula dhaqmay oo dhiigood uu u miirtay si la mid ah sida Hindiya uu ku sameeyay. 300 ee sannadoodba khayraadkeeda ayuu guranayay, shacabkeeda ayaanu adoonsi biday. balse waa duni madaxeeda minja loo rogayo oo hadba ninkii awoodda badani uu ku doobiyayo. halkaas ayaynu maanta ku soo koobaynaa muuqaalkeena. haddii ay jiraan weydiimo aad jeclaan lahayd inaan kaga jawaabo, fadlan faalladii igula wadaag.